السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا قال إنه وحرن aad baa idin salaamay dhammaantiin anigoo macalin Axmed ah mar kale iyo maalin kale saad nagu wada ogaadeen waxaan rabnaa inaan cashirka ka socono maanta waxaan sharxi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo cashir ku saabsan basic mechanics biraha gaariga casharada maxaa la dhihi jiray oolyada iyo biyaha iyo motoorka iyo cashirkaas ayaan sharxi doonaa marka hadduu ilaahay yiraahdo nala socdo intaan cashirka bilaabin hadduu ilaahay yiraahdo haddaad nagu cusub tahay channelka soo qaadaysa Driving School subscribe noo saara haddana la sii socotay like iyo share naga ilaawina soo asxaab badan u gaadho cashirkan ee uga faa'iideystaan kambalka furta si cashiro badan ay soo gaadhaan aan bilowno asxaabay waxaan furaynaa bonnetka ama albaabka baalka madaxa gaariga halkan laga furaa saad u jeedaan calaamadaasna waxaa ku garan kartaan albaabada baalka bonnetka ama madaxa hore gaariga baabuurta dhan way ka sameeyeen qaar ay kor ku leeyihiin iyo qaar hoos ku leeyihiin isku mid ma aha soo halkan laga furaa markaad furaysaan gudaha laga furaa laakiin markaad xirayso banaanka laga xiraa hadda gudahan ka furaynaa halkan baad saa u soo jiidaysaa kor u soo qaadaysaa hadduu furmay sidan marka waxaan aadaynaa banaanka kore markaad furaysaan waxaa la sameeyaa gacanna dhanka bidixda lagu qabtaa gacanna waxaa jirta bir yar baabuurta dhan way ka sameeyeen yihiin waa isku mid marka halkan baad soo jiidaysaa meeshan ya kor u qaadaysaa markaad furaysaan gacantan waxaa la rabaa kor inaad ugu jiido tan aad ku taabato calaamad yar ama carab yar yaa dhag ka siinaysaa markaas kadib waad furaysaa bonnetka markaad furaysaan bonnetka baabuurta isku mid ma aha qaar baa waxay leeyihiin intay ku leeyihiin hoose ushan oo kale qaarna kor ay ku leeyihiin hadda kan oo kale kor uu ku leeyahay tan soo bixinaynaa meel la suraa jirta marka baashan markaad suraysaan halkan aad gelinaysaan marka hore markaad gashato meel yar oo xajta birta la geliyo halkan aad gelinaysaan soo gaariga hadda saanta ka nugu jira marka waxa u maanaynaa marka bayterigan ku bilaabaynaa gaariga culuushiisa sarto waa kana muhiimaddu waxa waaye dalawar marka tahay waa inaad taqaanaa gaariga maxaa la jiray wax walba oo cilada ku iman karo meesha laga saxo intaada mechanic aadin ama nin fuundi aad u tagin marka fuundiyada inta badan markaad u tagto kale gaari hadduu ka halaawo kale waxay ku dhigi karaan maxaa cilado gaarigaaga haysto marka waa inaad u sheegi karto cilad walba oo haysto gaarigaaga hadda kana ku bilaabaynaa waa bayteriyada gaariyaasha isku mid ma aha haddii la dhaho isticmaal bayteriyada laba nooc waa midna waxaa la dhahaa dry midna waxaa la dhahaa acidic ama acid hadda kan gaariga ku jiro waa acid baa la dhahaa waa bayteri ku shaqeeyo aashito ama biyo inta badan baabuurta biyaha aashitada ku shaqeeyo waxa lagu gartaa fur bay leeyihiin waa kan hadda gan fur buu leeyahay 1 2 3 4 5 6 lixda fur ayaa la furaa biyo lagu shubaa gooni ah oo aashida laakiin marka kan oo kale hadda baabuurta isku mid ma aha bayteriga kan hadda lagama ogaan kara inta waxa laga ogaadaa on kaliya gudaha markaan galno baan ogaan karnaa inta ku jirto bayteriga laakiin baabuurta qaar waxay leeyihiin hoos minimum iyo maximum wax la dhahayo minimum waa ever maximumna waxa way ugu sareeyaa camal marka hadda bayterigan waa u jeedaan wuxuu leeyahay positive terminal wax la dhahayo iyo negative terminal positive kiisa waa kana waa plus waxa lagu gartaa inta badan colorka waa guduud sidoo company-ga soo saaray gaariga wuxuu ku sheegayaa inuu yahay kan plus kanna wuxuu yahay minus waa madowgaas lagu gartaa inta badan marka bayteriga haddii la dhaho size waxa waaye laba nooc ayagana waa 12 voltage wax la dhahayo iyo 24 voltage waa laba bayteri baabuurta waaweyn baa isticmaasho sida tireelayaasha looriyada iyo waxaas isticmaalaan baabuurta waaweyn baa lagu talagalay 12 voltage waa hal bayteri oo baabuurta isticmaalaan marka waxaan ka hadlaynaa bayteriga waa maxay shaqadiisu marka hore iyo gaariga suu u siiyo dabka bayteriga shaqadiisu horta waxa waaye dabka ayuu keediyaa dabka uu keediyo laba nooc ayuu kala qaybiyaa bayteriga gaariga wuxuu siiyaa marka koowaad alternative oo diinimada markuu siiyo kadib wuxuu siiyaa startada oo motoriinka gaariga ah marka labadaas ayuu kala qaybiyaa marka alternative ama diinimada gaariga oo la siiyay dib waxay ugu soo celisaa dabka gaariga bayteriga sababtoo bayteriga ugu soo celinaysa waxa waa inuu noo kaydiyo dabka gaariga bayteriga marka bayteriga cilado yar ayaa ku imaada marka inta badan cilada koowaad ee ku imaato gaariga tusaale ahaan waad soo gashay inaad kicisaa rabtid ama aad daarto ama aad dhaqaaqdo gaariga uu ku kici waayay cilada koowaad ee ku imaato waxa la dhahaa loss of connection waxa waaye waayaradan ayaa dabcaan labadan waayaro ayaa dabcaan
waagi hore dalwarada hore waxay sameyn jireen nusbaar iyo wax way ku dhakamin jireen markaas ku qarqaraac jireen laakiin hadda horumar baa la gaaday waxay leedahay boolal yar yar soo jeedin boolashaas ayaad ku dhuujinaysaan marka waxay noqonaysaa untied waa taaj garanaysaa marka soo cilada koowaad oo taas ah marka taaj garaysa ayaad gaariga ku laabanaysaa cilada labaad hadduu ku kici waayo gaariga intaad gaariga gashay gudaha oo ku kici waayo cilada labaad waxa waaye rusting waxaa laga wadaa bahlaan ayaa daxalaystaan kuwan ayaa waxaa galaan mirror waxaan ka wadaa way dhusuqoobayaan meeshan laba naas ayuu baytariga leeyahay labadan af ama labada naas ayaa waxaan galaan wasakh baa gasho ama uu caaraysto oo kale ka soo qaad markuu caaraysto waa la xoqaa ama waa la dhaqaa biyo lagu dhaqaa jirta marka ashita ah ama acid oo laga helo suuqa marka haddaad weyso biyahaas waxaad ku isticmaali kartaan soodhada waa ashita laftigeeda haddaad weysana biyo caadi iskaga dhaqi kartaa caadi weeye marka saas meeshan waxaa la rabaa inaad nadiifisaan oo dhaqdaan haddii ay cariyado gaariga careyska ayaa keenaa inuu gaariga kici waayo taas waa samaysay uu ku kici waayo haddana haddaad samaysana uu ku kici hadduu ku kici waayo cilada saddexaad ay ku imaato gaariga waxaa weeye loss of power inuu noqdo loss of power waxaa waaye baytariga oo dabka ka dhumo ama dab beelo dablaan ayuu noqdaa baytariga markuu dablaan noqdo waxa la sameeyo waxaa weeye waxaa lagu xaliyaa jam start wax la dhahay jam start waxay u baahan doontaa gaari kale inaad gaari hesho waay gaarigaas marka jam start aad samaynayso waa inaad hor dhigtaan labada gaari isku soo horjeedisaan waa inaad haystaa xarkihii lagu sameynayay jam starterka ama dabayska luqadda kaliya isku yaqaanaan dalwarada waa intaas marka qaadiga hadduu ku kici waayo baytariga waa inaad dhahdaa dalwar kale caawi marka dalwarada way is caawiyaan inta badan bahalada waa inaad haysataa bahalada marka waxaa la sameeyaa gaariga marka hore on baa laga dhigaa baytariga on haddii aad ka dhigi weyso ma kacayo ogow on aad ka dhigaysaa gudahaad gelisaa saacadda waa inay soo baxaan saacadaha baytariga soo muuqdo marka waxaa la sameeyaa bahalada waxay leeyihiin kalaro guduudan iyo kalaro madow ah guduudka saan hore idinku sheegay waa plus blackana waa minus labada gaari marka waxaa lagu kala xiriirini minusta iyo minusta oo black to black ah iyo plus to plus oo red to red ah ayaa lagu xiriirinayaa haddii aad isku connect gareyn weysaan minus iyo minus oo plus iyo minus isku taabataan ogow meesha waxaa ka dhacayo maaso ama dab baa ka kici karo adhowna baytarigaas wuu guban karaa ama waa laabi karaa cilad baa kugu iman karto marka waxaa la rabaa mar walba inaad isku xiriirsaan marka kadib ayuu qofka gaariga kicinayaa waad mahadsantahay ayaad leedahay marka baytariga shaqadiisu waa intaas marka jam starter saasaa lagu sameeyaa gaariga automatic ah intaasuu leeyahay marka haddii gaari geer awooto oo jam start u baahato nooc oo hadda aan kuu samaynayo dhan waa lagu samayn karaa laakiin hal ayuu dheer yahay markii jam start samaynayo jugays ayaa lagu kiciyaa gaariga geerka markii la joganayo gaariga geerka asaga waxaa la sameeyaa dad inaad hesho waaye gaariga dad markaa hesho ayaad waxaad samaynaysaa clutchka ama fariisiyoonaha qabanaysaa gaariga on baa ka dhigaysaa geerkii labaad baad dooranaysaa kadib handbrake u dejin dadka way kuu riixi markay kuu riixaan gaariga geerka hal mar baad ka soo boodaysaa clutchkii ma jirto balansi kadibna saliidda xoogaa yara taabanaysaa uu kacaya gaariga furaha ku rogaysaa saas ayaa lagu kiciyaa gaariga oo jam starter lagu sameeyaa gaariga geerka haddii aad weyso maxaa la jiray gaari kale laakiin automatic haddii aad weyso dad ama gaari midnaba ma u baahnid dadna kuma riixi karaan laakiin gaari bis ma ku caawin karo ama mooto ugu yar haddaad doonto waa ka qaadan kartaa ama baytari kale ninka inaad soo baxsato ee noqoni aad ku rakibato kaaga aad ku kiciso kadibna gaarigiisa aad u celiso kaaga ku celisay noqonaysaa marka baytariga farsamadiisa waa intaas ah ciladihiisa intaas dhan way shaqadiisana waa dabka ayuu noo kaydiyaa marka baytariga muhiimadu baabuurta qaar baytari ma laha hybrid gaari la dhahay oo kale ma laha laakiin gaarigan oo kale hadda waa caadi uu leeyahay baytariga marka baytariga shaqadiisa waa intaas saxabay next waxaan u imaanaynaa qaybta biyaha qaybtan waxaa waaye qaybta biyaha waaye biyaha gaariga meesha looga shubo horta waa kana baabuurta dhan way ka sameeyeen biyaha meeshan hadda waxaa ku qoran gaariga markuu kululaado oo kale warning digniin never open when hot hadduu gaariga kulul yahay ha furin baa loo dhahay marka qoladii companyga soo saartay gaariga ayaa ugu talagashay inaysan dadka iska furin meeshan waxaa ku qoran marka never open when hot markay afuraysaan baabuurta isku mid qaarna saan ayaga iskaga riixaa qaar kan laakiin marka la furayo saana loo riixaa saana loo furaa waa kana qaybta biyaha hadda waagi uu bariyay subaxii markuu joogo oo kale gaariga uu qawiyo caadi waa hadda waxa kuma yeelayo biyaha halkan la ogaadaa marka aad inaad ogaato halkan aad tuujinaysaa gaariga biyaha nagu jiro haddaad doonto waa ku kordhisan kartaa biyaha markaad xeeyso ogow furkaaga ha isgarab dhigin haddii kale gaariga intuu biyaha daadiyo waxa kuleelka keenaya gaariga temperaturekiisa waxaa waaye inaad furka si fiican ugu xidhweyso marka hore saana u xidhaysaa haddana waa nabaysaa waa wareejinaysaa hadda gaariga biyaha waa nagu jiraa waan xirnay tan waxaa la dhahaa coolant daawo waay daawadan waxay kaalmaysaa biyaha daawadan biyahay kaalmaysaa
marka daawadan way fiicanta way ku anfici waayo haduu biyaha ka dhamaado tana ku shubi biyaha wasaqna way ka saartaa goyna saacidaysa gaariga haduu biyaha ka dhamaado kale daawada marka waxay leedahay full iyo low fullkeeda waa kana lowgeedana waa kana oo hooseeya full inuu joogo raba hadda gaariga maxaa la jiray kulantigan way dhamaatay in lagu daro waay markay dhamaato oo kale hadda way waay baashan xoga in yara ku jirta hadda wax saa badnayn marka in lagu kordhiyo waay kulantiga marka waa daawo waxay la saacidaysaa biyaha ku xidhan tahay soo halkaas waxa ugu imaanayna biyaha qaybtan waxa waay biyaha ila socota waay wuxuu leeyahay toolaha ama radiator fan mubrahadan waxay qaboojisaa gaariga biyihiisa marka mubrahadan waxa waay markii gaariga la kiciyo bay shaqeysaa hadda ma shaqeynayso soo haantii biyahana waa tana qaadisay meesha looga shubanayo waa tana biyaha halkan lagu talgalay meel laga daadiyaa jirta biyaha wasaqda hoos looga daadiyaa ma arkaysiin waa inaad hoos u furtaa marka gaariga mechanic oo la geenayo service ayaa la daadiyaa biyaha soo halkaas waxa ugu imaanayna qaybta biyaha waxa u imaanayna qaybtii waxa u imaanayna engine-ka ama oil-ka u imaanayna meesha waxa ku qoran engine oil hadii oilyada ay ka dhamaato lacala meeshan ayaa looga darsadaa hadhow intaad furaysaan kana furi halkana furaysaan marka ku dhisanayso oilyada waa inta loo shuba biyaha oilyada markii lagu shubayo ama saliidda gaariga waa marka aad furayso halkan aad darsan kartaa oilyada 5 litir ay qaadaa soo hadda oilyada ma ogaan kartid halkan kama ogaan kartid waan iska xareynaa oilyada marka aad ogaanaysid waa inta laga ogaadaa hadii ka dhamaato lacala ku darsan rabto intaad uga dareysan hadii ka dhamaato oo rabto inaad ogaato qiyaasteeda ama cabir beelada oilyada halkan laga ogaadaa dipstick ay leedahay ama dheer ushana soo jiidaysan ushan exactly ma ogaan kartid inta oil ku jirto waxa sameeynaa safiyad ama maro ama tiish soo qaadanaysaan inaad tirtirtaan waa marka hore waan tirtireynaa bal wax inay oil ku jirto inaan birtan nadiifisaan weey marka birtan waxay leedahay asxaabay laba carab dhibicda hoose haday tagto waa eber oilyada way dhamaataa ama saliidda waa inaad gaariga ku kordhisaa dhaxda haday tagto waa half haday halka tagto korana waa full oo way buuxdaa oilyada inkastoo hadda gaariga meel dalacad u saaran yahay una qiyaami kara gaariga laakiin meel saman inuu yaalo ayaa fiicneed marka hadda waan fiirinaynaa bal asagoo saan u yaalo yaan fiirinaynaa oilyada soo oilyada waan fiirinaynaa hadda okay waa oilyada gaariga ku jirtaa waa kana muhiimadda waxa waa inay carabka tagto oilyada gaariga ku jirtaa oilyadana waxa waaye waa kaasa hadda gaarigu waa full oilyo way ugu buuxdaa hadii hoos tagi leed waxay ahaan lahayd eber bay ahaan lahayd soo subax walba soo kacdo oilyada marka jeegaranaysan gaariga saas loo jeegarayaa halkan laga jeegaran kan waa loo shuba kaliya marka halkaas ayaa laga jeegarayaa oilyada wataasa marka oilyada maxaa dhameeyaa hadii dhamaato oo kale waxa keena cilado inay baalka leaking sameynayso oo daadanayso ama gaariga wax ku dhaceen dhaawac ama oilyadii maxalli jiray ay dhamaatay halkan ka ogaanaysa awmaanana qaybtan waxa ku qoran meesha waxa ku qoran close ana loo xiraa markii la obalayna xaqana loo furaa soo kan waxa waaye sleed brake bal dhaha ama brake fluid ba English lagu dhaha sleed brake waaye sleed brake waxay saacidaysaa brake waaye haduu gaariga sleed brake ka dhamaado kuma qabsamayo brake ama cilada kugu iman karta gaariga meesha waxa leedahay marka ayadana maximum iyo minimum hadu way lagu jirtaa sleed brake waa muhiim marka tan waa sleedi brake ayada isku sleed ma aha nooc kala lagu shubo ayadana ama oil free nool dhaha soo taasi waxa way halkaas aan ugu imaano halkan oo imaanana qaybtan waa qaybtii wiperka ama wiperada masaxayaasha weey markii biyaha ka dhamaadaan oo kale hadaad tirtiranayso masaxayaasha hore iyo kuwa dambe inaad ku dhaqdo biyaha lagu talagalay weey halkan ayaa loo shubaa ayada biyo caadi ah ku shubaysaan ma fahant soo halkan markaad xidhaysaan saambad u xidhaysaan markaad furaysaan halkaas kaga shubaysaan ayada 3 litir bay qaadaa ama 2.5 litir wax limid ah soo halkaas ayaa loo shubaa oilyada gaariga ee baalkii maxaan ka wada biyaha oo masaxayaasha ama tirtiriyaasha xilliyada markay roobka jiraan oo kale iyo sida loogu shumaalo ama dib wasaq ay ka imaato maraayad haadka gaariga aad u fiirisan okay waxaan maalinna markan baalkii kan waa gaariga meesha ka neefsado waa sankiisi waa meeshan uu ka qaataa hawada soo gaariga meeshan areedo ka tuuro meeshan waa marka soo intan oo kale waxa waa marka saas weeyaan halkan waxaa noogu taala alternator inta badan waa tan halkaas soo si ku taala alternator waa tii dhahayay bayteriga ku xirsaneed alternator xarig ay leedahay shiinkigaas ay wareejiyaa alternator waa diinimada gaariga waa dabdhalis lagu dhahaa af Soomaali ayada cilada yara ku imaado waxa waa dabkeedo yaraado haduu yaraado ama ahlaado bayterigan
eber ayuu noqonayaa niil marka waxaa la rabaa inaad ilaalisaan ayadana ciladaha ku imaanayo dabka maxaa lagu ogaadaa inaad dhammaatay inaad halowday bir baa halkan laga saaraa halkaa hoose ayaad bir ka saaraysaan gaariga oo wareegaya injinkiisa oo qaylinayo haddii ku dhigto birtaas way fiicanta haddii ku dhig weysana ciladaa jirtaa diinnimada marka waxaa waaye bayteriga ayay isla shaqeeyaan waayo bayteriga dabka ka soo baxo diinnimada ayuu siiyaa diinnimada dabka maxay samaysaa ayadana dabka way soo celisaa waxay ku celisaa bayteriga sababta ugu celinaysa bayteriga waxaa waaye inuu kaydiyo dabka soo haddaad alamino oo aad meeshaas saasa ku ogaan kartaan ciladaa ku imaada ayada waa iska yaryihiin ama xarigaas oo go'o hadduu xarigaa go'ona waxaa waaye ka kacay noqonaysa ayada laftigeeda soo xarigaas isbeer buu leeyahay wax walba isbeer baad suu leeyahay gaariga waa inaad soo gadataan marka diinnimada ayada waxaa waaye bayterigaas ay isla shaqeeyaan istaatada ayada hal mar bisa la siinaa dabka inta kastoo aad istaatada la arkaynin hoose ku taallaa inta badan lama arko istaatada ama motoorinka gaariga waa injinka gaariga waa dhawaaqa iyo motoorka la socdo weeye ayada dabka hal maraa la siinaa bis waxaa ma celinaysa ayada istaatada ayada waxaa waaye waxaa cilada keena waxaa waaye gaariga oo maxaa la dhihi jiray oo markaa kicinaysaan aad si khaldan u kicisaan ama gaariga oo daaran oo faraha kusii labarigto ayaa halayaa ama gaariga maxaa la dhihi jiray geerka oo kalaajka iyo saliidda oo aad iskula isticmaashaanna way sababtaa inay gubato istaatada ama motoorinka gaariga marka asxaabta qaaliga ah halkaas ayaan ku joojinaynaa maanta hadduu ilaa yaraado cashirkaan sharaxayna waxaa waaye cashirka oo ku saabsanaa qaybtan maxaa la dhihi jiray madaxa hore gaariga ama qaybahan gaariga maxaa la dhihi jiray xididadiisa gaariga waxaa waaye bini'aadanka calooshiisa wuxuu leeyahay xidido iyo waxyaalo badan baa ku jira gaarigana meeshan waxaa waaye ninkii soo saaray ilaa amarkiisa wuxuu ka soo qaaday inuu yahay xididadii iyo wax walba inaad fahansanta gaariga xanuunkiisa meel walba laga ogaado gudaha waaye laakiin waxaa la rabaa meesha laga xalinayo waxaa waaye inta waaye cilad walba gaariga ku imaato haddaad fundi geysaan lacalla intaada fundi geenin muhiimadda waxaa waaye inay idinka fahansantihiin cilad walba gaariga ku imaan karta xallin karto ma aha gaariga inaad maxaa la dhihi jiray subax walba iska soo kacdo oo iska wado subaxa muhiimadda waxaa markaa soo kacdaan inaad biyaha fiirisaan iyo oolyada ama saliidda gaariga aad fiirisaan muhiimadda waa intaas subax walba oo soo kacdo gaariga service waa la geeyaa laakiin waxaa lagu geeyaa 5,000 oo kilomitir ilaa 15 kilomitir lagu geeyaa laakiin muhiimadda waxaa waaye intaad service geeninba gaariga inaad ogaatid cilad walba oo ku imaan karto oo gudaha laga ogaado ama meeshan aad ka ogaan kartaa caloosha gaariga gudahana waxaa ka ogaan kartaan dashboardkii iyo calaamadihiisii wixii oo dhan haddii ku soo boodo bayteriga calaamadda dashboardka haddii ku soo boodo bayteriga ama alternator laysan haddii ku soo boodo oolyada injinka oolyada fiiri oolyada ka dhamaatay haddii ku soo boodo temperature gauge oo aragto hatch inuu yahay ama hot waxaad fiirinaysaan qaybta biyaha ama radiator ciladaysan ama cilada jira inta ma laga hadduu injin ku soo boodo qaybaha motoorinka gaariga fiiriya hadduu maxaa la dhihi jiray uu ku soo boodo maxaa la dhihi jiray asagana calaamadda maxaa la dhihi jiray ayadana handbrake inaad fiirisan waaye marka qaybahaas oo dhan gaariga muhiim waa inaad fahansantihiin haddaad fahmi weyso gaariga ciladaa ku imaan karaa waa kugu imaan karaa gaariga oo waddada iska dhex taagan ayuu demi karaa xitaa gaariga soo asxaabta qaaliga ah cashirka halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa hadduu la yaraado haddaad ka hesha cashirkan like saar una sii sheegalay asxaab badan oo walaalaha suu gaadho cashirkan meeshan waa Sakhan Driving School aad baad mahadsantihiin aniga waa macallin Axmed ah oo idin sharaxay qaybtan hadda waan xiraynaa markaan xiraynaa asxaabta birtan waatana meeshiida ku celinaysaa kan inta saaraysaa birtan tana inta iska gelinaysaa soo saasa loo xiraa marka xiraysaan xooga u xirina waxa la rabaa tartiibina soo dhaawaan halkan waa laga xiraa xaggaasna laga furaa